waxaan rabnaa marka ugu horreysa inaan cambaareyno dhacdadii foosha xumeed ee ka dhacday hotel Bakiin taasoo lagu soo xiray muwaadiniin oo ka mid ah golaha badbaadada. waxaa fool xumo ah oo sharci darro ah in muwaadin meel uu raadsaday cadaalad lagu sii qabto oo lagu sii xiro meeshii loo dacwaday saldhig ahayd in muwaadin oo dacwo geystay oo la xabadeeyay markaas kadib la qabto oo la xiro asagoo dacwad raadinaya cadaalad raadinaya. waxaan rabnaa meesha wixii ka dhacay waa wax qaab darro ah oo aan loo dulqaadan karin. ku-tarigfalka awoodahana waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda inay arrintaas soo faragiiso sareynta sharciga iyo ku dhaqanka sharciga. cidna kuma takrifan karto awooddeeda iyadoo isticmaalaysa inay cadburiso muwaadin oo ka hadlaya arrimaha quseeya dantiisa iyo dalkiisa. waxaan rabnaa wasaaradda cadaaladda ee dowladda dhexe inay arrintaas soo faragiso. waxaa kaloo baaqan u diraynaa hay-adaha ay qusayso arrimaha bini-aadamnimada iyo hortalqoolka. meeshan wax ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin. muwaadin u dhashay deegaanka koonfur galbeed oo u doodaya arrimaha ay qusayso danta dalkiisa iyo dadkiisa in isagoo aaday saldhig dacwo xabadeen lagu soo sameeyey haddana ay qabtaan ay yidhaahdaan qof buu u xiran yahay. madaxweynaha koonfur galbeed sharciga badda ku qaban karaa, sharci darro dadku ma qabsan karo. meeshaas wax ka dhacay waa wax aan loo dulqaadan karin oo arrin cajiib ah. waxaan rabnaa waxaa kaloo baaqa u jeedinaynaa taliska booliska Soomaaliyeed meel ay dadka dhammaan ay u dhan yihiin oo loo dacweyn karo qof walba dacwo qabo miya mise meel ay shakhsiyaad ay iska leeyihiin oo wixii rabo lagu samayn karo miya. taasna waa iga su-aal. waxaan rabnaa taliska booliska Soomaaliyeed in booliskan la isticmaalayo oo loo isticmaalayo in lagu gumaado ummadda reer koonfur galbeed ay soo farageliyaan. waayo hadda dhacdada dhacday waa dhacdo qof dacwo wato oo cadaalad raadinayo meeshii loo dacwan lahaa waa saldhig. haddii saldhiggii ay shakhsiyaad u shaqeeyaan oo cadaaladii sidii raba ay u bixin karin arrintaas nafteeda waa in ay wax laga qabto. taliska booliska Soomaaliyeed waxaan rabnaa in si degdeg ah arrintaas usoo faragisaan. waxaa kaloo rabnaa inaan ka hadalno dadkan waxa maxkamada la soo saaray malaha kaalshiraa loo gudbiyey. marka in kaalshiraa qof laiskaga gudbiyo oo maxkamad iyo waxba aan la soo marin nafteeda waa arrin u baahan in wax laga qabto. marka arrimahaaskan waxaan rabnaa dowladda federaalka Soomaaliya in arrintan koonfur galbeed ka dhacday ay faragelin kusoo samayso jawaab degdeg ah waafin ay ka bixiso.